الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ووزيراء المالية والصناعة والتجارة في اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض أن حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات و600 مليون ريال. المسؤولون السودانيين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ عبد المجيد كان لقى بسم الله الرحمن سدو الرحيم. بالشيخ سدو غريغا شيخ عبد المجيد مقال غريغا والدغنيا waxa degan jin waa ku bariya waxa raba inaan ku aqristo albaqaro dhan gurigan isdij horta nabiga salli say wax u jiraan bal isha horta ana ku faasina sheeqow feer sheeqow kan waa taleefanka cusub mar dhawaa soo xaday soo ma qurxan sheeqow ha uu qurxiyay sheekh taleefankan wuxuu kaga duwan yahay taleefanada kale haddii uu message isoo dhaco aniga waa awoodaa inaan arko bis haddii qof kale oo damco inuu fiiriyo message-ka sheeqow ilaa cumriga kala kiciyay way qarsame marka sheekh Abdi Majid aniga dhibaato lama maalin haystaa marka message isoo dhaco wuu qarsoomaa marka aniga waxa ku fakiray inuu jin ila daawanaa message-ka oo qarsamayo adiga waxa waqti qof ay rumaysan ee marka message isoo dir waa tijaabin ma aaminsani laakiin maxaa message ku soo qoraanay waxa rabtid hadaa rabtid tuug haddii kale uxubak fillah أحبك في الله حبك في الله yes wuu qarsame أعوذ sheeqow بالله من wala الشيطان waay الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سلو قرحي مسجدة بسم الله الرحمن الرحيم شيق وحو قوة مركنا أنا حال سميوا كاميرا حرنا سكلا ماله عيال شيدان كسو استاقا أمالها ور عداد هدي عداه أوكي هاد ملف عنا كوحر كاميرا دا مركو حسوغا إنو مسيجي صدعو صدع هي مسيجو رخصي وصدع مسيجك وقرسمي والله وقرسمي عمبل هاد ايغو waxay duubtay kaamirada qarsoon wax ma u arkine sug tartiibaa ka dhigaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم kusoo dhawow minankeena waa dhowahay maamuslaaqa guri qurux badan aad degtay xabiibti xamdi soo dhawow dhab ahaantii fadhiga ku yaal oo qurux badan tagso iibsatane kani xabiibti waxaa ka dalbada instagramka kuwa caan ahna iibinaya marka aninkuna waa ku dhiirigelin oo ka iibsanay markaad saastaa ciwaankoodi sii hee waa laga jabsade qolka wiilkaaga daxliim aadaa u kala kicsan inta ugu soo iibisa kani xabiibti waxaa kasoo iibsan marka cadday waaw miiska cuntadaaba ka darane intee ka heli karaa maamuslaaqa miiskan xabiibti waxaa ka dhaxlay awowgii oo ku dhintay 100 sano allah u naxariisto ilaahay kaadist xabiibti ninkaa igu salaamnaya habaryar xamdi cali anigu aqaana hooyo alaabta guri meesha kasoo iibsatay waa u sheegtay sax hooyo ma u sheegin saaxiibadii guriga kusoo dhaweeyay ilaahay kaadista xabiib maasha allah gurigaaga wuu qurxoon yahay maxay u qorxoonaa waxa kasoo iibsaday bakaaro wax kasta guriga yaalno faran bakaaro wayno taano martid oo baxdo bakaara kasoo iibsaday wiilkayga liibaan shandad ma ku iibiyaa liibaan wiilkayga liibaan hadduu nala socday maxaa ku wala dhacay socday laakiin meel isku qori ma aqaani liibaan nin ragaa taqeeli askari wiilkaygii si fiican u qaali askariyo wiilkaygii afdubtay wiilkeena liibaan waa la afdubtay ninkaygiiyow wiilkayga ninkayga mee ka daarane waxba iguma dhicin bis hilibseeda gos iga jiro waxna igama gelin wax ku dhagan gooskaaga kabta maajidow marka koowaad waxaa soo helaynaa liibaan kadib ayaa fiirinayna wax ku dhagan gooskaaga waxay haysatiin 3 daqiiqo ogaada aniga kabta maajid lima dhaho haddaa wiilkay liibaan kusoo saarweysaan 3 daqiiqo haddii kale waxaad jibnaa qof walba meeshan ku sugan 3 daqiiqo way badantaa kabta maajidow haddeertaan ayaa rabaa wiilkayga dhal oo dhiiq naagyahay rag waa kuwana waa diyaar keliya anoo dhiijay maajid amar ii sugayaan iska daa wax gooskaa ku dhig waa fiirinah ee ord wiilkeena soo gowgow hooy anigaa soo dhamaystay xabiib liibaan intee koyda intee ka imaatay noo sheeg yaa ku afdubta aabbaha geesaa joogay ninsuu hooy minisu yaa waay minisu si u yaalaane maku diliyo wax ma kugu samey ii sheeg doondoon raabtay waxaan dhan oo soo siiyey aaw asaga ma carar mise wuu joogaa hawaa jooga ma joogyaa waa maqasheen oo maleha waxaa leeyahay wuu joogaa ord soo qabtahe ninka intuu qofkan afduban aaw kabta maajid aaw ninkayga xataa mala afdubtay
rogo xataa ninkayga waa la afduubtay. xaaskayga halkaan joogaa waa isla meesha lagu afduubto wiilkaaga liibaan anuu dhiijimaad oo jares la afduubanaani maskiinta ayada u baqaa waa mukulaal qiimahooda waa waali walle laakiin kuwaalta u dheer iska daa taabuwa kuu saara uma leh maanta. wiilka cabdixaliim wiilka cabdixaliim soo degheeniyo waxaa ka daana suuqa aadne. wiilka cabdixaliim waa aqaana kanoo kale wax lagu sameeyo. wiilka cabdixaliim ilaa hadda ma jiftaa cabdixaliim wiilka cabdixaliim cabdixaliim wiilka cabdixaliim maxaa dhacay cabdixaliim wiilka cabdixaliim oo dhintay ma dhimanin. yaa gurigii shaqeyn haddaa dhimatid yaa adeegii doonaa. istaag cabdixaliim wiilka cabdixaliimo istaag. maama mee ka daar adigana mee ka daar mee fadays ha mee ka daare ma noosha adi ha may rabta marka ani wiilkay wax umaleyn inaad dhimatay ani dhinte faalaluuta ani ma icanaysa wiilkayga umaayey odka ma dhiigaane raalinaqo airphonea dhagoo iigi jire marka maqleen qur-aan kariimka dhegeysanaaye walba ma dhiigaane umaayey walba ma dhiigaane raalinaqo marka sorry maama may umaleeyaasi inaad dhinte cabdixaliim ma dhimanin xayun yursaq hadda suuqa mu baxaane hooyay waxaa taa howlaha adduunyada midda hanata badidood hadallada galgaceelka hibo eeba u siiyo waxaa rabaa inaa meel aado saacad kadib aa soo laabto haddii aa soo daaho waa kan taleefonkayga waa isoo wici kartaa. wiilkaygiiyo waxaan ku leeyahay guriga jiifo bixitaankaaga oo kan ahan ma aha mid la aqbalay oo la ogol yahay. ummu cabdixaliime waxaa ku weydiinayaa gabayga soo saan ma aha bisinkaa ku bilaabayaa caloosha waa maran tahay jeebku waa maran yahay wakhtiga waa wakhti dambe gurigeena joogaa guri barwaaqo inta adiga joogtid laakiin hilow iyo baahi iyo gaajo ayaa qolka jiifka iga soo saar anoo wata shukumaankayga dadka gabay ku hadlooyo waana dhibteen ogaada waa idinka jiifo weynay shaqa ii taala berine suulsaarada ay sugayso iyo ina aado kana soo laabto salaadana dukado jiimkana aado wejiga dhaqdo jiifto waxaa ay sugaysa suulsaarid iyo bixitaan iyo soo laabasho iyo salaad dukasho iyo jiim aadid iyo weji dhaq waa daala ogaada inta dhimanna waa iloowe fideoga wakhtigiis waa dhammaaday waana salaamantihiin waa ku mahadsantihiin daawashadiina fadlan haddaa ka heshiin muuqaalkan like saar saan u ogaano inta qof ee danaynaysa muuqaalada noocan oo kale ah taasina waxa ay noo horseedaysaa in aan sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad daawanaysid janalka cabdixaliim cali fadlan subscribe saar si aad ula socotid waxyaabaha ugu dambeeya aan soo dhigi doono fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu